بالله الرحمن الرحيم ومالين سبتية طبعاً كبشة جانوري سنة كلابكون لباتنية لح أو كوباغان كوبية لباتن كبشة رجب سنة كون أفر بغلا فرتنية تضبا تاريخ ذي جريدة كسو دوادا مركله يبرامجكي ورر كمانتا قضبضا عن إذين كوغو هيلانا وحا كبدا iyadoo ay sii xoogaysanayaan banaanbaxyada ka aloosan dalka Iiraan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu mar kale ku goodiyay in uu duqeyn doono Iiraan haddii la laayo dadka shicibka ah dhinaca kale dawladda Iiraan ayaa si adag uga jawaabtay hadallada Trump waxaana fariin ashtaka ah ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay banaanbaxyada ka socda wadankaasi Iiraan iyadoo banaanbaxyadu ay ku sii faafayaan magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ku yaal ayna galeen maalintii 14aad ayaa waxa lagu soo waramayaa in magaalada Tehran saacadihii la soo dhaafay banaanbaxyadu ay xoogaysteen iyadoo dibadbaxayaashu ay marayaan wadooyinka waaweyn sida ay muujiyaan muuqaalo la faafiyay inkastoo internetka dalka oo idil uu ka go'an yahay boqolaal dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay xaafadda Saadaat Abad ee waqooyiga galbeed ee Tehran halkaasi oo ay ku dhawaaqayeen hal ku dhigya kana nidaamka dalka hay'adda NetBlocks ee internetka qiimaysa ayaa sabtidii waxay sheegtay maanta in internetka guud ahaan dalka laga jaray iyadoo guud ahaan dalka uusan lahayn wax internet 36 saacadood ee la soo dhaafay xilli dibadbaxayaasha wadooyinka ay soo buux dhaafiyeen dhanka kalena isla wararka ku saabsan banaanbaxyada Iiraan wiilka uu dhalay hogaamiyihii hore Iiraan ee xukunka laga tuuray Reza Pahlavi ayaa maanta ugu baaqay shacabka Iiraan inay sameeyaan banaanbaxyo bartilmaameed ujeedaduna ay tahay in la qabsado xarumaha magaalooyinka isagoo sidoo kale uu sheegay in uu si diyaarinayo inuu ku soo laabto dalkiisa mustaqbalka dhow mudaharadyadu waxa ay ka dhasheen dhibaatooyin dhaqaale kadib markii lacagta dalkaasi ay hoos u dhacday uguna dhacday si weyn sicir bararkuna uu ka batay 40% balse waxay markii dambe isku bedeleen banaanbaxyadu kuwa si toos ah u dhaliilaya dawladda banaanbaxyadu waxa ay ka soo bilowdeen ganacsato waxayna ku fideen jaamacado iyo magaalooyin iyadoo ay dhaceen iska horimaadyo amni xeerlaaliyaha guud ee Iiraan ayaa ku hanjabay ciqaab culus xitaa dil kuwa lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan kicinta rabshadaha waa hagaag daawadayaal haatana waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysay ee barnaamijka xubinta falanqaynta taasi oo aan ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga ku istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda diblomaasiyadda iyo sirdoonka sidoo kale waxaan ku soo qaadanaa xubintan oo ku qaadadhignaa arrimihii ugu dambeeyay warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa Trump oo mar kale ku hanjabay inuu duqeyn doono Iiraan haddii dibadbaxayaasha la laayo dawladda Iiraan oo dacwad ka dhan ah Mareykanka iyo Israa'iil u gudbisay golaha ammaanka hadaba warbixin iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladahan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka digay suurtagalnimada in uu amri karo weerar military oo ka dhana Iiraan Trump oo wariyaasha kula hadlay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay ku jirto sida uu yiri dhibaato weyn kadib dibadbaxyo ballaaran oo dadweyne waxaana uu mar kale uu ku celiyay digniin ah in uu amri karo weerar military waxa uu intaasi ku daray in uu filayo in dadku ay ku guda jiraan la wareegitaanka magaalooyinka qaarkood arrin aanay cidna filayn dhowr toddobaad ka hor mar wax laga weydiiyay fariintiisa ku wajahan hogaamiyaasha Iiraan Donald Trump waxa uu yiri waxaad fiicnaan lahaydeen in aadnan rasaas bilaabin sababtoo ah anagu waanu bilaabi doonaa rasaas Trump hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri haddii ay bilaabaan inay dadka dilaan sidii hore ay u sameeyeen waynu faragelin doonaa waxa uu cadeeyay in tani aysan micnaheedu ahayn dirista ciidamada dhulka ah balse ay tahay in si aad u daran loogu garaaco meesha ay xanuunka ka dareemayaan dhankiisa danjiraha Iiraan u fadhiya qaramada midoobay Amir Saeed Arwani ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku mas'uul ka yahay in dibadbaxyadii nabadda ah ay isu bedelaan rabshado ballaaran oo burbur iyo qaswata warqada uu diray golaha ammaanka Arwani waxa uu ku gudbiyay in si aad ah ay u cambaaraynaysa Tehran daacayadaha joogtada ah sharci darrada ah iyo kuwa mas'uuliyad darrada ah ee Mareykanka oo ay si wada jir ah ula shaqeynayaan ulana socdaan Israel
kuna faragelinayaan arrimaha gudaha Iiraan iyada oo loo marayo hanjabaad kicin iyo si ula kac ah oo loo dhiirigelinayo xasilooni darro iyo rabshado. sirdoonka ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabay IRGC ayaa sheegay in cadawgu bedelay istiraatiijiyadiisa weerar military una wareegay wiiqitaanka ammaanka gudaha iyada oo la kicinayo rabshado. waxaa intaasi ay ku dareen in cadawgu uu ku howlan yahay faragelin barnaamij sax ah oo herar kala duwan ah oo hoos imaanaya hagida sirdoon shisheeyo iyo sidoo kale dhaqaajinta kooxaha argagixiso. sirdoonka ilaalada kacaanka ayaa sidoo kale sheegay in faragelinta madaxweynaha Mareykanka, mas'uuliyiinta sahnuuniyiinta ah iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa kooxaha argagixisada ah ay siiyeen dibadbaxayaasha ee fawdo iyo sidoo kale in dibadbaxyadu qaab cusub isu rogaan. isla wararkan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu taageerayo waxa uu ku tilmaamay dadka geesiyaasha ah ee Iiraan halka afayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka oo ku tilmaamay eedeymaha ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi kuwa been abuura. Maxamed Cabdiraxmaan HBN. atahay aad buu mahadsan yahay maxamed oo inoo soo koobiyay xubintii falanqaynta. daawadayaal guud ahaan waxaa intaasi ku eg maanta barnaamijkii wararka maanta oo si toos ah halkan ay idinkaga soo wada tabinayaan anagoo kale ah Nimco Timcade weliba Mawlid Xaaji Cabdi. si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xirnayn nagu soo biir. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijka. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. mahadsanid Mawlid. maanta waxaynu ku bilaabaynaa Masar halkaasi oo ka dhacay shil naxdin leh. ugu yaraan 11 qof ayaa dhintay halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen shil gaari oo xalay ka dhacay gobolka Hamiya ee koonfurta wadankaasi Masar maalmo uun kadib shil kale oo la mid ah kan oo isla gobolkaasi ka dhacay. sida ay sheegeen ilo rasmi ah shilka ayaa ka dhashay isku dhac gaadiid oo ka dhacay wadada Saxaraha Bari ee kadib markii ay isku dhaceen gaari ay saarnaayeen shaqaale ka shaqeeya macdanta dhagaxa iyo gaari xamuulaha. isku dhaca ayaa sababay dhimashada ilaa 11 qof iyo dhaawaca 9 kale. ciidamada ammaanka iyo gurmadka degdega ah ayaa diray ilaa 11 gaari oo ambalaas ah si ay u soo qaadaan meydadka una soo badbaadiyaan dhaawacyada ku jiray burburka gaadiidka. baaritaan hordhac ah ayaa muujiyay in ilaa 8 meyd ah loo qaaday cisbitaalka Sadormiya halka 3 kalena loo wareejiyay cisbitaal kale si baaritaan loogu sameeyo loona geliyo gacanta dacwad-oogayaasha. 9 qof ee dhaawac ahaa ayaa lagu daaweynayaa cisbitaalka Sadormiya iyadoo mas'uuliyiinta gobolka Miyana ay amreen in si degdeg ah loo bixiyo dhammaan daryeelka caafimaad ee loo baahan yahay isla markaasna la xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha ambalaaska, taraafikada iyo kuwa kale ee arrimahani ay quseeyaan. dhawaan ayay ahayd markii Miya uu ka dhacay shil kale oo dhiig uu ku qabtay kadib isku dhac gaari basaska yaryar ah iyo gaari kale. shilkaasi oo sababay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca 15 kale. dhinaca kale golaha wasiirada ee dalka Masar ayaa ansixiyay hindisa qaanuun cusub oo taraafikada ku aadan kaas oo adkeynaya ganaaxyada dembiyada halista ah si loo yareeyo shilalka. sida laga soo xigtay tirakoobka rasmiga ah ee dawladda Masar waxaa sanad walba ku dhinta ilaa iyo 6,000 oo qof sabab la xiriira shilalka wadooyinka. waa hagaag markana aynu eegno warweyn oo soo baxay saacadihii la soo dhaafay. Turkiga ayaa doonaya inuu ku biiro heshiiska wadajirka ah ee difaaca istiraatiijiga ah ee ay kala saxiixdeen Pakistan iyo Saudi Arabia sida ay baahisay shabakada wararka Mareykanka laga leeyahay ee Bloomberg. shabakada oo soo xiganaysa ilo xogaal ah oo diiday in magacooda la shaaciyo ayaa sheegtay in wada hadallada oo maraya marxalad horumarsan ay u badan tahay inay ku soo dhamaadaan saxiixa heshiis rasmi ah. waxaa sid mudan in bishii Sebtembar ee sanadkii tagay 2025 intii lagu jiray booqashadii ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif oo ku tagay Saudi Arabia labada dalba ay kala saxiixdeen heshiis difaac istiraatiiji ah oo wadajir ah kaasi oo qodobadiisu tilmaamayaan in weerar hubeysan oo dibadda looga soo qaaday Sacuudiga ama Pakistan midkood loo tixgeliyo weerar lagu qaaday labada dalba. Bloomberg ayaa warbixinteeda ku sheegtay in ku biirista suurtagalka ah ee Turkiga ee heshiiskan ay furi doonto wadada lagu dhisayo isbahaysi amni oo cusub oo wax ka bedeli kara isu dheelitirka awoodda bariga dhexe iyo meelo kale oo ka baxsan. Turkiga ayaa ka fiirsanaya ku biirista heshiiskan xilli ay jiraan
shaki ku saabsan kalsoonida Maraykanka iyo isdulsaar sii kordhaya oo u dhexeeya danaha Turkiga, Sacuudi Carabiya iyo Pakistan ee Koonfurta Asia, Bariga Dhexe iyo Afrika. Pakistan iyo Turkiga ayaa leh xiriir militari oo soo jireen ah, iyadoo labada dal ay iska kaashadeen dhowr mashruuc oo dhanka difaaca ah. Ankara ayaa siisay ciidamada badda ee Pakistan maraakiib dagaal. Sidoo kalena waxay horumarisay dhowr dayuuradaha dagaalka ee F-16 oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Pakistan. Turkiga oo haatan la wadaaga Pakistan iyo Sacuudiga tiknoolajiyadda dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ayaa doonaya in labada dal uu ku soo daro barnaamijkiisa diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad ee kan. waa tahay haatana Suuriya. ciidamada qalabka sida ee Suuriya ayaa maanta ku dhawaaqay la soo gabagabeeyay howlgal amni oo ka socday xaafadda Sheikh Maqsuud ee magaalada Xalab, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsanaa ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee loo yaqaan SDF kadib maalmo ay socdeen iska horimaadyo rabshado watay. arrintan ayaa timid saacado kadib markii ciidanka Suuriya ay bilaabeen howlgal baaritaan iyo sifayn ah oo ka dhacay xaafadda Sheikh Maqsuud, taasi oo ahayd xaafadii ugu dambeysay ee Xalab ay kaga sugnaayeen xubno ka tirsan ciidamada SDF kadib markii laga saaray xaafadaha Ashrafiya iyo Bani Zayd. wakaalada wararka Suuriya ee Sana ayaa baahisay in guddiga howlgallada ciidanka Suuriya uu sheegay in gebi ahaanba la dhammaystiray sifaynta amniga ee xaafadda Sheikh Maqsuud ee magaalada Xalab. wakaalada wararka Sana ayaa intaasi ku dartay in guddigu ugu baaqay shicibka xaafadda in ay guryahooda ku nagaadaan sababo la xiriira xubno ka tirsan SDF iyo PKK oo weli ku dhuumanaya xaafadda. ilo military ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada ammaanku ay xireen xubno SDF ka tirsan isla markaasna ay la wareegeen hub culus iyo mid fududa. si kastaba ha ahaatee, wariyaasha ku sugan Xalab ayaa soo sheegaya in rasaas laga maqlayo xaafadda Sheikh Maqsuud. dhinaca kale, ergeyga Maraykanka u qaabilsan dalka Syria Thomas Bragg ayaa xaqiijiyay in dalkiisa ay ka go'an tahay taageerida, sida hadalka u dhigay, dadaalada xabad joojinta ee Xalab iyo hubinta ka bixitaan nabadeed oo ciidamada SDF halkaasi ay iskaga baxaan. waa tahay bal markana aynu eegno Maraykanka, halkaasi oo banaanbaxyo waaweyn ay saacadihii u dambeeyay ka dhaceen magaalooyin badan oo ka mid ah dalkaasi, gaar ahaan magaalada Minneapolis kadib dilkii haweeney lagu magacaabi jiray Rani Nicole Godo oo 37 jir ahayd, ayadna macallimad iyo sidoo kale hooyo oo rasaas ay ku fureen ciidamo ka tirsan hay'adda socdaalka Maraykanka ee ICE Arbacadii. mas'uuliyiinta federaalka ayaa sheegay in askarigu rasaas u adeegsaday isku difaac kadib markii gaarigeedu uu u dhaqaaqay dhankooda, balse warar kale ayaa tilmaamaya inay haweeneyda gaarigeedu uusan u dhaqaaqin dhanka ciidamada. dhacdadanna waxay dhalisay cara aad u ballaaran oo ka jirta dalkaasi.